kulan wacan daawadayaal halkan waa janaalka Hubal News qodobada wararka daawad doontaan waxaa kamid ah ra'iisul wasaare Xamse oo kordhiyay la tashiyada xukuumaddiisa ballanqaad cusubna sameeyay Abiy Ahmed oo ka shaleynaya arin uu ku sameeyay Xasan Sheekh Maxamuud iyo weerar khasaare dhimasho sababay oo lagu qaaday askar waday meedkan in lagu qisaasay gudaha degmada Cabudwa qodobadaasna waxay ahaayeen kuwii ugu door korona warka janaalka Hubal News fadlan nagu soo biro kamid noqo saaxiibada sida joogtada noogu soo xirmaya ee halkan ka hela wararka aanu ku baahinay maalinlaha aragtidiina qaybta hoose noogu reeba muuqaalkana la sii wadaaga asxaabtiina laagtiina waa inoo muhiim haatan ku soo dhawaada qodobada maqasheen oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo la tashiyo ku saabsan dhismaha xukuumadda la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ayaa qaabilay maamulayaasha warbaahinta ka horgasho gudaha dalka ra'iisul wasaaraha ayaa u ballan qaaday baahda saxaafadiin xukuumaddiisu ay mudnaan siin doonto daafurnaanta shaqada dowladda iyo xogsiinta shacabka waxa uu tilmaamay doorka ku aadan wacyigelinta bulshada ee dhinacyada amniga iyo waliba la dagaalanka fikradaha argagixisada ee laga sugayo warbaahinta inay dardargeliyaan sidoo kale Xamse Cabdi Barre ayaa adkeeyay doorka xukuumadda ee ku aadan dhowridda xorriyadda hadalka xuquuqda warbaahinta iyo badqabka wariyaasha isagoona ku bogaadiyay shaqada ku aadan xogsiinta iyo wacyigelinta ay u hayaan dadka Soomaaliyeed dhankooda madaxda warbaahinta ka howlgasha dalka ayaa la wadaageen ra'iisul wasaaraha muhiimadda ay leedahay xoojinta wada shaqeynta dowladda iyo warbaahinta taas oo aasaas u ah xoojinta xorriyadda iyo madax banaanida saxaafadda iyagoona la wadaagay talooyin la xiriira qaabka ay u wada shaqeyn karaan warbaahinta iyo dowladda ayaana sidoo kale kulan la qaatay qaar kamid ah haweenka Soomaaliyeed waxayna inta badan diiradda ku saareen kulankooda doorka haweenka ee dowladdiisa iyo inay si weyn uga soo dhaxmuuqan doonaan xukuumaddiisa cusub Xamse Cabdi Barre ayaana haweenka Soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan xukuumaddiisa kuna garab istaagaan howlaha culus ee horyaala waxa uu dhankiisa ballan qaaday inuu wax badan ka qaban doono dhibaatooyinka waxyaabaha cabashada ee ka imaanaya dhinaca haweenka Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Xamse ayaana saacadii ugu dambeeyay kulamo kala duwan la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka oo uu kala hadlayay inta badan dhisitaanka xukuumad tayo leh oo si degdeg ah uga samata bixisa dhibaatooyinka haysta dadka Soomaaliyeed iyo dalkeenaba qaybaha ra'iisul wasaaruhu la kulmay waxa iskugu jiraan culimada ururada bulshada rayidka dhalinyarada haweenka bahda saxaafadda kuwaas oo soo jeediyay talooyin wax ku ool ah iyagoona u sheegay inay gacan siin doonaan dowladda cusub geesta kalena Abiy Ahmed ayaa naftiisa ku eedeynaya kadib wixii uu ku sameeyay Xasan Sheekh xubnaha nabad iyo nolol ayaa baraha bulshada ka bilaabeen weerarka dhinaca safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee Qaahira ayaga oo difaacaya Itoobiya oo la ogyahay inay tahay cadowga koowaad ee Soomaaliya leedahay kooxdan ayaa si gaar ah qiil uga dhiganaya hadal uu madaxweynaha Masar Cabdi Fattaax al-Siisi ka sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen madaxweyne Xasan Sheekh kaas oo la xiriiray biyo xireenka ay Itoobiya ka sameynayso wabiga Niil waxaan ka wada hadalnay xaaladda biyo xireenka dib u curashada Itoobiya waxaanu isku raacnay aragtida halista siyaasadaha halka dhinaca ay ku wajahan mashaariicda wabiyada caalamiga iyo sidoo kale inay lama huraan tahay in aan ku dhagnaano mabda iskaashiga iyo wada tashi u dhaxeeya dalalka wabiga uu maro si loo xaqiijiyo inaan waxyeelo loo geysan midkoodna ayuu yiri madaxweyne al-Siisi xilli uu kulankaasi faahfaahinayay madaxweyne Xasan Sheekh meelna kuma sheegin inuu hadalkaasi ku raacsan yahay Siisi mana jirin warmurtiyad wada jira oo arintaasi lagu cadeeyay sidoo kalena afayeenka madaxtooyada ayaaba warbaahinta ka beeniyay arinka ku aadan in si gaar ah looga hadlay arinta wabiga Niil si kastaba falanqeeyaasha siyaasadeed ayaa rumaysan in Itoobiya iyo Abiy Ahmedba ay mas'uul ka yihiin siyaasad kasta oo ku wajahan biyo xireenkan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaatay hadiiba ay jirto maadaama ay albaabada ka xirteen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorshihiisu ahaa inuu booqdo Itoobiya lana kulmo Abiy Ahmed ka hor safarka Masar haase yeeshee Abiy ayaa saacad dambe baajiyay safarkaasi sidoo kale ilaa iyo hadda wax taariikh cusub uma qaban safarka madaxweynaha dadka arintaasi qaba waxaa kamid ah Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay'adda daraasaadka ee Sahan Research isla markaasna falanqeeya siyaasadda gobolka aan xasuusiyo
kuwa dhaleeceynaya safarka xasan sheekh ee Masar. xaqiiqda xasan sheekh wuxuu qorsheeyay inuu u safro Addis Ababa kadib Djibouti si uu la kulmo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. daqiiqadii ugu dambeysay xasan waxaa loo sheegay inaan Abiy la heli karin wax taariikh ah looma qaban. waxa kaliya ee xasan sheekh doonaya ayaa ahayd inuu dheelitiro xiriirka arrimaha dibadda oo dib u heshiisiin uu sameeyo, ayuu yiri Rashiid Cabdi. Abiy isaga ayaa ka dhuuntay xasan sheekh maxamuud. ha eedeen xasan wuxuu dhab ahaantii isku dayay inuu aado Addis Ababa, ayuu yiri. sidoo kalena agaasimihii hore ee macadka Heritage Cabdirashiid Xaashi ayaa sheegay inaysan wax dhibaato ah ku jirin haddii xasan sheekh uu Qaahiro booqdo ka hor Addis Ababa. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu halku dhiga siyaasadiisa gudaha iyo dibaddaba ka dhigay Soomaali heshiisa, dunidana heshiis la, sida booqashadiisa Imaaraadka ka hor Turki aysan dhibaato u ahayn, ama tiisa Asmaraba ka hor Djibouti aysan dhibaato u ahayn. booqashadiisa Qaahiro ka hor Addis Ababa dhibaato ma noqon doonto, ayuu yiri Rashiid Cabdi. xaqiiqda in madaxweyne xasan sheekh maxamuud degdeg u booqday dhammaan dalalka dariska la Soomaaliya ama ugu saameynta badanba ayaa ku tusinaysa sida ay uga go'an tahay inuu cid kasta heshiis la ahaado, balse in Abiy noqday kan kaliya ay diiday booqashada xasan sheekh waxa ay cadeen u tahay inuusan nabad rabin. waa hagaagay daawadayaal, iminkana waxaan eegaynaa weerar khasaaro dhimasho leh sababay ayaa lagu qaaday askar waday meedka nin lagu qisaasay Caabudwaaq. wararka laga helayo magaalada Caabudwaaq ayaa sheegaya in koox dabley ah ay rasaas ku fureen askar la socotay meedka nin lagu qisaasay magaaladaasi, iyadoo dhimasho iyo dhaawac uu dhaliyo weerarka. waxaa degmada Caabudwaaq lagu fuliyay dil toogasho ah oo lagu qisaasayay Axmed Dhagadheere oo lagu helay inuu dilay marxuun Faarax Cumar Geele oo ahaa taliye ku-xigeenkii nabad sugidda Galmudug iyo walaashiisa Xaawo Cumar Geele. kadib toogashada ninkan oo meel fagaaraha ka dhacday ayaa waxaa meedka soo qaaday ciidamo ka tirsan NISA iyagoo geeya xaafadda qoyskiisa degnaayeen si ay u aastaan. laakiin dabley ka tirsan jufada ninkan la toogtay ayaa weerar ku qaadeen ciidankii oo rasaas ku fureen gaarigii meedka lagu waday. waxaa la sheegay in weerarka ku dhinteen 2 askari, 3 kalena ay ku dhaawacmeen oo ka tirsan ciidamadii la socday meedka ee NISA. wararkii ugu dambeeyay ayaana sheegaya in israsaaseyntan oo ka dhacday xaafadda 1 Luulyo ee degmada Caabudwaaq ay istaagtay markii dambe, waxaana degan xaaladda degmada inkastoo ay jirto xiisad cusub oo ka dhalatay weerarkan lama filaanka ah. degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa caan ku ah dilalka beelaha iyo kuwa aanooyinka ku dhaca, waxaana sanadii ugu dambeeyay lagu laayay dad kala duwan oo bulshada deegaankaasi kamid ah. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warki oo aad kala socoteen Hubal News. fadlan daawade ku soo biir channelkan oo kamid noqo saaxiibada ku xiran qaybta hoos aragtidaada nagula wadaag, muuqaalkana sii share garay, laagtiinana waa inoo dhiirigelin. waana ku mahadsantiin daawashada iyo la socodka warka channelka Hubal News.